nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu furtay magaalada Maka oo uu la wareegay ayaa qabaa'ilkii magaalada Maka ku hareereysnaa sida qabiilka Hawazin iyo Thaqiif oo xulafo ahaa ayaa waxay dareemeen in halkaas iyagana ay kaga imaanayso khatar aad u weyn oo muslimiintuna ay sii xoogeysteen maadaama ay la wareegeen magaaladii Maka ahayd. Hawazin iyo Thaqiif oo xulafo ah ayaa waxay soo ururiyeen ciidan tiradiisu gaarayso 20,000 oo askari, waxayna go'aansadeen in ay ku duulaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa oo Maka ay ugu tagaan. ciidanka gaalada waxaa hogaaminayay nin la yiraahdo magaciisa Malik ibn Auf an-Nasri. wuxuu amray qabiil walba inay soo kaxaystaan ciyaalkooda iyo dumarkooda iyo wixii xoolo hanti ay kala haayeen si dagaalkaas aysan uga soo cararin oo ciidanku markii uu dego ciidanka gadaashiisa qabiil walba la dhigo dumarkooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda oo ay ugu dhintaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ogaaday labadaas qabiil oo isbahaysatay oo qabaa'ilkii carab oo kala dhan soo kaxaysatay inay soo socdaan oo soo weerari doonaan magaalada Maka ayuu wuxuu diyaariyey ciidan saxaabadiisii ka mid ah. wuxuu isu keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam 12,000 oo saxaabi, waxaana ay ka soo baxeen oo ka soo dhaqaaqeen magaalada Maka iyagoo u socda dhinacaas iyo dooxadii Xunayn. dooxada Xunayn ee dagaalku uu ka dhici doono waxay magaalada Maka u jirtaa 25 kiiloomitir, waxay u dhaxaysaa magaalada Daa'if iyo magaalada Maka. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii iyagoo xilli salaad subax ah maraya dooxada Xunayn ayaa ciidankii Hawazin iyo Thaqiif waxay u galeen oo ugu dhunteen buurihii ku hareereysnaa Xunayn, waxayna ka soo xireen waddo walba iyo luuq walba oo looga bixi lahaa waadigaas ama dooxadaas, waxayna roob uga dhigeen fallaaro iyo warmo, waxayna ku bilaabeen isla markiiba dagaal kadis ah oo muslimiintu aysan ka filanayn. muslimiintii way argagaxeen, way naxeen, badankoodiina waa ay ka carareen nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga hareerihiisii maalinkaa waxaa ku soo haray 100 saxaabi wax tiradooda lagu qiyaasay. waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam garabkiisa markaa ahaa Cabbaas ibn Cabdilmuttalib. nabigu seeftiisii ayuu la baxay, baqashiisii ayuu fuulay, kadibna dagaalkii ayuu bilaabay. saxaabadii ayuuna u yeeray in ay soo laabtaan oo meeshooda ku sugnaadaan oo dagaalka ay galaan. saxaabadii markay arkeen geesinimada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sugnaantiisa ayay qaarkood soo laabteen. Cabbaas ibn Cabdilmuttalib oo nin aad u cod dheer ahaa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri waxaad u yeertaa saxaabada inta kale. Cabbaas wuxuu ku bilaabay nimankii geedka nabiga calayhi salaatu wasalaam hoostiisa kula galay baycada xilligii waqtigii sulxul Xudaybiya ama heshiiskii Xudaybiya. waxay ahaayeen 1,400 oo saxaabi. saxaabadaas markii loo yeeray isla markiiba waa ay soo laabteen. Cabbaas wuxuu ku xijiyey muhaajiriintii, wuxuu ku xijiyey ansaartii, dhammaan saxaabadu waa ay soo laabteen oo dagaalkii ay dib u soo galeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa intuu seeftiisii qaatay ayuu wuxuu yiri waxaan ahay nabi maxamed, beenna maaha, ina Cabdilmuttalib ayaana ahay. dagaalkii markaas wuxuu u bilowday si toos ah oo 2 saf ayaa loo kala saftay oo si toos ah ayaa la isku weeraray. nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalku intuusan bilaaban ciid ayuu intuu qaatay ayuu indhaha wuxuu kaga siiriyey ciidankii gaalada. ciidda intay iska jafeeyeen ayaa saxaabadii seef qurka kaga wada jartay. argagax iyo cabsi ayaa Allah subxaanahu wa tacaala qulubtoodii ku tuuray, waana ay kala carareen, waana ay kala farxadeen. caruurtoodii, dumarkoodii iyo xoolahoodiina meeshii ayay kaga carareen oo waa ay jabeen. maalinkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu waxay soo qafaasheen dad tiradoodu gaarayso 6,000 oo qof oo ay gaalada ka qafaasheen oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur. xoolana waxay soo qabsadeen geel tiradiisu ay gaarayso 24,000 oo awr iyo 40,000 oo neef oo ari ah. qabiilkii Thaqiif ahaa oo dagaalka isaguna ku jiray oo jabay ayaa firxadkoodii waxay u carareen oo galeen magaaladii Daa'if. magaalada Daa'if marka waxay ahayd magaalo derbi aad u dheer oo ku hareeraysan yahay oo difaaceeduna uu aad u adag yahay. magaaladii ayay albaabadeedii soo xirteen, halkaas ayayna waxay ka galeen difaac. nabiga iyo saxaabadiisu ma aysan istaagin ee waxay u dhaqaaqeen dhinacaas iyo Daa'if. Daa'if ayay hareereeyeen, waxayna ku soo rogeen go'doon. 20 maalmood kadib ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam go'doonkii Daa'if uu ku hayay uu joojiyey.
oo ciidankiisii wuxuu u soo raray magaalada Madiina wana u duceeyay reer Thaqiif in Allah subhanahu wa ta'ala uu diinta uu ku hadeeyo oo ay soo muslimaan. Nabiga alayhi salaatu wasalaam Madiina markii uu ku soo laabtay ayaa qabiilkii Hawazin waxay soo direen wafdi ay nabiga alayhi salaatu wasalaam ugu sheegayaan in ay soo muslimeen diinta islaamkana ay qaateen. nabiga alayhi salaatu wasalaam waa uu soo dhaweeyay dadkii laga qafaashay iyo dumarkoodii iyo caruurtoodiina waa uu u celiyay, xoolahoodii xataa qayb ayuu iyaga ku celiyay. wax yar kadib nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu yimid wafdi ka socda Thaqiif oo iyaguna doonaya inay soo muslimaan oo diinta qaataan. sanadka dagaalkaasi oo dhacay wuxuu ahaa sanadkii 8aad ee hijriyada. sanadkii 9aad ee sanadka ku xigay wuxuu ahaa sanadkii wufuuda. waa sanadkii carab oo dhan iyagoo koox ah, qabiil ah, raxan ah ay nabiga alayhi salaatu wasalaam ugu iimaanayeen oo diinta islaamka ay ku soo galayeen.